rasuulkeena markii jannada aakhirada tago ilaahay adoomaa kala xukumo ruuxa ugu horeeya oo jannada silsiladeeda jara waa rasuulka sallallahu alayhi wasallam ruuxa ugu horeeya ee silsilada jannada jaraya waa rasuulka ila qofka ilaahay ku ikraamiyay oo lagu ikraamiyay waxa la yiri marka jannadii uu soo dhaxkalaya malaku jibriil baa la socda markuu jannadii iyo quruxdeeda iyo adduunkada la fiirinaya waaba gabar dhinaca ugu haysa rasuulka oo la taabacayso jannadii la gashay wuu yaabaya rasuulku bilaay malaku jibriil alayhi salaam maxay tahay gabadhan waxa la yiri waa hooyo ku guuleysatay ilmaheeda tarbiyadiisa waa hooyo ku guuleysatay ilmaheeda tarbiyadiisa waliba hooyadaasoo la sheego inay tahay hooyo agoonnimo ku koris oo waliba kalinimo ku koris maantana agoonta iyo agoon u ekuhu labaduba inay ku badan yihiin agoon iyo agoon u ek aabuhu hadduu doorkiisa qaadan waayo oo ilmaha dayaco agoon u ek laakiin reerkii hooyo fiican leh way baxsadaan reerkii aan hooyo fiican lahayn xataa haddii aaba fiican leeyihiin ma baxsadaan waxa la wada ogyahay waaye marka waxaa la yiri hooyadu waa madrasada koowaad wax laga soo barto waxa la ilmuhu guriga iisaarka wax la dhaho in ma aragtay aad walaalka wax qaaliya u quurto oo aad raadayso naftaada intaad ka goyso aad isaga siiso guriga laga soo bartaa waa tarbiyada koowaad waxa la yiri tadxiyada inaad adigu u tadxiyayso isa guriga laga soo bartaa cadaaladda guriga laga soo bartaa raxmadda guriga laga soo bartaa takaafulka iyo isxambaarka guriga laga soo bartaa mas'uuliyadda guriga laga soo bartaa sidaas daraadeed al ummul murabbiya masdarul quwwa weeye aw tharwatul bashariyya labadaas isku darsatay hooyada murabbiyada ahi waa awood iyo xoog baa la yiri dabaabadaha iyo taarayaasha ka xoog badan oo cid is hortaagi karta aysan jirin weeye tharwatul bashariyana waa tahay wax soo saarka bulshada waxa la yiri waxa quantity plus quality baaqi ma leh laakiin haddii quality quantity iska bato sidaynu maanta u badannahay oo maanta hal doorku inoo ku yar yahay wax qiimo ama leh laakiin waxa la rabaa quality in lagu daro quality marka yaa sameyn kara hooyadaas sameyn karta hooyadaas waxa ma sameyn karta biduuni cilmi biduuni tababar la'aan biduuni magac waa inay hooyadu cilmi barata waa in la tababara waa inay cid gacan qaadataa hesha waa inay cid wax ka qaadataa hesha haddaad adigu inta wada hooyada Soomaaliyeed in meelo badan ay ku firfircoon tahay baa jirta marka inay muhiimada koowaad ay gacanta saarto ustaadada doorka labaad iska leh laakiin su'aasha aan aad maaragtay aan rabo calaamad su'aalka inaan saaro annaga burburkii Soomaaliyeed markuu nagu dhacay fiiri 50 sano oo gaab ah wax jira wax ku dhow oo gaab ah baan ugu jiro ilmihii burburkii Soomaaliyeed 20 sano ka hooseeyay wali caruur buu ahaa secondary mu usan dhamin 30 sano ku dhawaad oo burbur ana waana soo galay 50 years wax ku dhow oo gaab ah baan ku jirnaa aawa jiilkii umad bedeli lahaa jiil aan dawlad arag jiil aan tarbiya arag jiil aan hooyo guri u joogta arag jiil aan niyad sami arag baa loo badan yahay in yar umada naadirkeeda baa la yiri ma gasho baa la yiri naadirku qiyaas ma galo qiyaasta mucdamka umada ayaa laga soo qaataa sidaas daraadeed baa leaders fiican u laana sidaas daraadeed baa hoggaan fiican u laana sidaas daraadeed baa wadaniyad u laana sidaas daraadeed baa wadankeena gacmaheena ku burburinayna hooyadu markay guriga ka baxday oo ay nolosha raadisay yes waxay ahayd wax loo baahnaa laakiin inta ay ku weyday baa ka badan inta ay soo xiraysay inta ay ku weyday baa ka badan hooyada saaka guriga ka baxdo caawa soo gasho muhiimadii ilaahay ugu talagalay oo iyo shaqadii wadiifadii rasmiga ahayd bay ka tagtay ayadoo daalan sida ay u samaysan tahay biologically say u samaysan tahay dareenkeeda ilaahay subxaanahu wa ta'ala caadifadu ku badiyay ragana adayga lagu badiyay caadifada ilaahay wuxuu ugu badiyay waa xasaasi hooyadu waxa loogu badiyay ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ogyahay inay ubad soo saarayso sidaas daraadeed naxariis badan iyo jiljilaac badan baa laga rabaa ma keeni karto shaqada adag oo ragga loogu talagalo markaynu banaanka u baxnay jiilkan maxay ahaataaye wax inuu ku tilmaamna aan maanta garanaynin oo suuqa inoo jooga ayaa inoo soo baxay sidaas daraadeed waxaan aad u boorinayaa in wadaniyada la xoojiyo barnaamijyada noocan inoo isugu yimaado in ma aragtay aad iyo aad loo booriyo in hooyada wax la baro inay hooyadu ilaahay ka cabsato in cilmiga gabdhaha yararka ay bartaan shariicada islaamku wax badan bay adkaysay waa ahkaam adag baa noo la dhijiyay waxa la jiro waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkay waa dhanbaaday hibahay u soo soconin مقاصد الأسرة واحد الحاجة مقاصد الأسرة أسرة مقاصد إلهي مقاصد الشريعة نقشين سما مقاصد الأسرة باجرة مقاصد إلهي قلت لك إنه قيس جرو واي لو جعلها إنه قيس جرو وحاول حفظ النسل ترنك إلا إلى
taranka in lagu ilaaliyo ay dadku bataan waa xifdu nasab abtirsiyo qofka inuu galo meesha uu galo ma ahan qabiil nasabku hebel ina hebel 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 bala rabaa maxaa la diidayaa mamnuucu tamanni waagi hore tamanni iyo ilma aan la dhalin bala sheegan jiray kaasa la rabaa in la diido waa soo gabagabay waxa la mamnuucu zina ina fawaaxishtu iyo waxa xun ay faafaan ayaa la diidan yahay waxa la rabaa taxqiiqu sakan gurigu qoys markuu yahay deganaansho waa inuu ka dhashaa jacayl raxmad wixii ilaahay ugu talagalay waa in qoyska laga helaa hadduu qoyska jaysan oo guura qaba waxa weeye umul baadi ay joogtaa habeen baa la guuraa way gaajaysan tahay cidda bushidaysa male habeennimadaas marka la soconaya na adoo gaajaysan adoo guura qaba adoo sida geela dhalay godolan oo irmaan waa umul naasiiba caana ka dacayaan adoo sida geela dhalay godolan oo irmaan loo joojin maayo safar baa lagu jiraa baawur ma jiro diyaarad ma jirto 10 saac ama 12 saac baa la soconaya baadiya lagu socdaa adoo bay tiri sida awr gurgura gabilan oo wax sida xamna waatay dhabarkana waxba ku sii dawaana la soconaya cid isu intaas oo hawl waxay tiri marka bay tiri intaas adigoo qaba oo dhibaatooyinka qaba awrku wuxuu doonin inaad dabarka soo xirta waa hawshii baadiyaha inaad ratiga dabarka soo xirta laga rabaa haddana waxay tiri arigu wuxuu doonin inaad soo dabaalata xoolihii maanta la degay ninku maanta oo dhan rutigiisa soo hogaaminay gaag gurjisay xooluhu waa fakanaya nul cusub ay yimaadeen adaa la rabaa marka inaad isu soo celceliso xoolihiina inaad soo celisay ka rabaan buu yiri aqalku wuxuu doonin inaad soo dugaalisa guriga inaad dhistana adiga laga sugaya saygu wuxuu doonin inuu meel dugsoon gala xurmadii iyo qiimihii rag u lahaa baa wali dadka ku soo weyn odaguna meel dugsoon inuu galo raba waliba wuxuu doonin inaad daana ugu darta nin raga wuxuu eelgiisa nin raga wuxuu ehelkiisa ka dooni jirayna waa laga rabaa weeye waxay ku soo gabagabaysay waxba aniga ha ii dudin waxa ku haysata danta hadii lagu soo furo adaa